aniga oo ka imaaday guriga aabbahay una socday guriga hooyaday ayaa waddadii aan marayay waxaan ku arkay dhowr qof oon u maleeyey inay yihiin dad derbi jiifiska ah. ma garan karin tirada nambarkooda saxda, laakiin 2 qof way ka badnaayeen. waxayna huwanaayeen shay aan u maleeyey inuu yahay jawaan ama busti duugoobay. dadku marka waxay fadhiyaan derbiga, waa dad wada isku dhegdhegan oo wax huwan, marka ma garan kartid nambarkooda saxda iyo waxa ay yihiin. aslanna meeshu ma aha meel aad u iftiin badan. agtooda waxaa ahaa meherad yar oo lagu iibiyo cunooyinka fudfudud sida beegarka iyo shuwaarmada iyo wixii lamid ah. waxa aan la yaabay laakiin waxa ay tahay ninka waddada dhinaceeda kala taagan ee garka iyo timaha badan leh, sigaarkana cabaya, misna isoo eegaya caawa dhan. meeshuu marayay mar qura unbaan arkay isagoo isoo eegaya oon ishaga iga leexnayn. anna danka ma sii gelinayna intaan dadkii derbiga fadhiyey ku leexday baan idhi assalaamu calaykum. ciduu iima jawaabin. kadib markaan u dulqaadan waayey urka ka soo kakamaya, intaan isha ka tiriyey baan ka dullaqaaqay. dukaankii yaraa oo 5 tallaabo ii jiray baan aaday. intaa hadda kii waayey eegayaa waddada taagnaa. dukaankii baan imi. markii aan daaqadda soo istaagay baan arkay gabar dhallinyaro ah oo ku jirta meesha. markiiba waan dareemay inuu qof kalena jikada ku jiro, oo gabadhan waa gabadha oodharka qaada, qofka jikada ku jira ay u geysaa qofkaasa alaabta sameeya, kadibna iyaday usoo dhiibtaa lacagta. sistamka waa fahmay. sidoo kale waxaan dareemay inay rabaan inay meesha xiraan maadaama ay xilli damba tahay. raalli noqon baan idhi inantii meesha ku jirtay, iyadoo dhoola cadaynaysabay si degan ii tiri may waa caadi, ii sheeg maxaad u baahnayd walaal. waxaan idhi 5 xabbo oo jiisbeegar ah iyo waxaan u baahnaa biyahooda. gabadhii jikada gadaala ku jirtay baa qaylisay oo tiri makaa dhabbaa hodanay, xilligan iyo 5 jiisbeegar oo dhan ma samayn karaanu. waxaan dareemay in ay daalan tahay, 5 beegarna ay samaynteedu wakhti u baahan tahay. sidoo kale waxaan ogaaday quruxleydani hortaagan in hodan la dhaho. hodan baa tiri dhib ma laha walaal, anaa kuu soo qancinaya inay kuu samayso. markaasaan idhi haye. waxyar kadib bay ii soo noqotay, waxay tiri waa laguu samaynayaa. 15 daqiiqo kadibna alaabtaydii waa la ii keenay, meeshiina waa isaga soo tegey. alaabtaydii waan soo qaatay si aan ugu geeyo dadkii masaakiinta ahaa een isiri malaha gaajo darteed ayay kuugu jawaabi waayeen. weli ninkii waa ii eegayaa hadde. markii aan dul imi ayaan bacdi agdhigay anigoo maagan inaan isaga tago, bay islaanu hadashay oo tiri waa maxay waxaad na soo agdhigtay? saan idhi dee waa cunto. say tiri oo saan dhahnaa markaa? dee cunan idhi maxay tahay see dhahnaa? markaasay inta codkii bedelatay qaab argagaxle u tiri ma gaajaa nooga kaa muuqata addoon yahow? ha gaaja ayay kiin muuqatay cuna baan idhi ha xishoonine. marka anigu dadkan aan dul taaganahay qofka ila hadlaya kama dhex garan karo, waayo dhammaantoodba way wada foraraan oo hoos bay eegayaan. anoo xoogaa cabsi ahi i gashay baan idhi ka dhaqaaq. intaanan sii jeesan baa haddana codkii mid aan ahayn oo aan mooday codka oday waayeel ah lagu yidhi xageed ka keentay cunadan? saan idhi dukaanka